Suldaan Naasir Cabdi Ismaaciil oo ka tirsan salaadiinta reer Somaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu jawaabada ka bixiyay hadal ka soo yeeray wasiir dawladii hore ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo Mahdi Cismaan Buri kaasi oo sheegay in ay quus ka taagan yihiin xukuumadda uu hadda gadhowdayn ka yahay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Suldaanka ayaa waxa uu sheegay in hadalkaasi uu isaga ku kooban yahay wasiir dawlaha balse ka beel ahaan aanay la qabin oo aanay iyagu quus ka taagnayn. Suldaanka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri hadalka ka soo yeeray wasiir dawladii hore ee kalluumaysiga jamhuuriyadda Somaliland xukuumadii hore Mahdi Cismaan Buri waa beentii ma ka taagin xukuumadan madaxweyne Biixi quus iyo xukuumadii ka horeeyba tan iyo maalintii aanu dalkan dib ugu soo noqonay dib aynu la soo noqonay xornimadeeda wax quusan taagneen ma jirto wax badanna waagii bariiba way noo kordhiyay maanta xukuumadan talada haysa ee uu hormuudka galwadeeg ka yahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xaqiiqdii wax badan buu soo kordhiyay wax badanna waa ka sugaynaa oo ku harsan laakiin wax quuso aan ka taaganahay ma jirto balse wasiir dawluhu naftiisu hadlayay waxaanu saleenahay xilku waa meerto maalina waa adiga mudane maalina waa qeyrka shalay adiga ayaa ahaa wasiir dawla iyo wasiir ku xigeen muddo 15 sano adiga beelahayagan mushadariyaada soo horfadhiyay xaqiiqdii meel ilaah ku geeyaba wax aad u soo kordhiso badan oo manfac leh oo la taaban karo ummadaas ma jirto maantana waxa haya adiga waliba ilmahaagiiba haya maanta kursiga ku fadhiya oo wada dheer u soo maray aqoon ahaana dhisan shakhsiyad ahaana dhisan xisbul xaakimka kulmiyana kamid aha isla markaana uu mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilka u magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta madaxweyne Muuse u taalaa maadaama uu yahay injineer Xuseen ama wasiir ku xigeenku shakhsi ku haboon xilka ay xil ka badan ba xaqna qoomiyad ahaan iyo ummad ahaan iyo qaran ahaan baan u leenahay inaanu darajooyinka eeda wasiir haday tahay iyo haday tahay xilalka qaranka oo dhanba inaanu wax ka qabanno hogaaminta talada dalkan xaq u leenahay haddii la helo cid hankeeda iyo damceeda leh cidna marti ugama noqonayno inaanu maanta u soo istaagno hogaaminta talada dalka qaranka macdan laba wasiir iyo wasiir hadduu markaa wasiir buura ka dhigayana wuu ku habooyay waanu filin karaa de madaxweynaha aanay u taalaa laakiin wax quuso oo mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aan maanta ka taaganay xukuumaddiisa ba jirta waxa uu leeyahay mudane madaxweyne qaranku maanta meel fiican buu marayaa rajo fiican baana jirta waxay aad qabanaysaa waxay aad qaban karaysana ummadda waa u qabatay wax kale badanna waa ku harsaynaa oo aanu ka sugaynaa oo inaad u qabato waananu ka rajaynaynaa inaad qaban doonto ummadan iyo qarankabana meel fiican inaad gaarsiin doontaan rajaynaynaa waxaana u muuqata xaqiiqdii in maanta meel fiican uu dalku marayo marka isaguun baa quus joogay isaguun baa quus qaaday isaguun baa lahaa maalintii aan xilka hayayna ay xuquuqdeedii waanu helno rajadeedu way fiicnay maanta xilka ka maqanayna quus baanahay taas isaga ku koobantay annaga naguma matalo waana wax lafjab ku ah isaga cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa. dhinaca kale Suldaan Naasir Cabdi Ismaaciil ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee muranka badan ka taagan yahay isla markaasina waxa uu xisbiga mucaaradka ee wadani u soo jeediyay inay la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka Somaliland. Suldaanka oo mar kale arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri muranka doorashooyinka waxa weeyaan qarankan xukuumadda xisbiyada golayaasha qaranka intaba hawl culus oo qaran oo arrimaha doorashooyinka ku saabsan ayaa iyo komishanka doorashooyinka iyo qoliyahan qaran bixiyaasha inaga taageeraba ayaa u taalaa waxa xaqiiqa murugu waa laba qodob ummadda si fiican looguma beeyay komishanka hal kala diro iyo hal kordhiyo xisbiga wadan leeyahay labada qodob waa laba qodob oo dastuuri ah waa ayaan daro marka in ummadda lagu jahwareeriyo muran ma dhalaysa un meel la jirin labada qodob waa laba qodob oo dastuuri ah dastuurkana iyo xeerarkan iyo qawaaniintan dalkan uu ku kala socdana kuwii sameeyay koow waxa ka cad qaadir jirta ayaan darraweyn baanu arkaa Cabdilqaadir
iyo madaxda xusbiga wadaniba waa sharci dejiyaashii waa dastuur sameeyayaashii qaranka inay xaalkeena maanta ka dhigaan la joojiyaana bannaan la jifiyaana bannaan adeer waxaanu idin leenahay hawl culus oo saami qaybsiga dalka u taalle murugan yar ka gudbo commissionka mandate-koodu waa dastuuri la shaqeeya muruga kale inaga daaya maalintu dhamaadana laguma dari karo tire inta dastuurka laga bedelayo soo magacaaba xubnihii commissionka qaranka ee bedeli lahaa kan hadda maalintu ka dhamaado ee doorashada idii qaban lahaa dabeeto kuwana waxay sii fududaynayaan wadada ku sii xaadhayaan habkii doorashadu ay ku dhici lahayd iyo sidii diiwaangelin loo sameyn lahaa inta kala shaqeeya waaba iska tegayaan doorashada goor bay tegayaan